بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وهابونا خياري kusoo dhawaada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay gaar ahaan Jamhuuriyadda Ukraine dagaalkii ka socday wararkii ugu dambeeyay ee ugu xasaasisanaa ee imika update-ka ah ee la isla dhex marayo oo inoo qorayaan imika wakaaladaha wararka ee ay kamid tahay FP Reuters iyo kuwa kale oo imika halkan aan ku soo koobi karin ilaa shan qodob ayaan halkan kuugu faahfaahin doonaa qodobka ugu horeeya madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa u sheegay madaxda warshadaha difaaca ee dalkaasi Ruushka inay kor u qaadaan oo ay hubiyaan tayada hubka ay ku dagaalamayaan ciidamada Ruushka si degdegana ay u helaan dhammaan hubkii iyo agabkii military ee ay u baahnaayeen si ay dagaalka Jamhuuriyadda Ukraine ka socda ay u sii wadaan qodobka labaadna waxaad ku maqli doontaan sidoo kale waxa ugu muhiimsan baa la yiri in la dhameystiro oo si weyn loo hagaajiyo sifooyinka farsamada dagaalka iyo qalabka lagu dagaalamayo ayuu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ruushka si aynu ka helnay buu yiri khibradda dagaalka intii aanu ku jirnay dagaalka Jamhuuriyadda dalkaasi Ukraine qodobka saddexaadna waxaad ku maqli doontaan madaxda dalkaasi Ukraine ayaa iyaguna sheegay in dagaalka ka socda Ukraine ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine inuu boqolkiiba 40 hoos u dhacay Ukraine ayaa qiyaasay in dagaalka uu hoos u dhacay boqolkiiba 40 sanadkiiba taas oo ugu wacan baa la yiri duulaanka Ruushka oo ku soo qaaday sida wakiilada Ruushka ka socda ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters iyo AFP labadaba qodobka afraad waxa ku maqli doontaan sababta ugu weyn ee dagaalka sida tooska ah isla ka socda ee Jamhuuriyadda Ukraine isla markiiba waxay keentay baalidi shidaal yaraan iyo caqabad ay la kulmayaan ciidamada dalkaasi Ruushka kadib markii uu ku yaraaday shidaalkii sida uu sheegay sargaal Ukrainian ah oo lagu magacaabo Ivashenko qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxaad ku maqli doontaan hawsha ugu muhiimsan uguna weyn ayaa ah baa la yiri in la dhameystiro militariga hubka ay ku dagaalamayaan warshadahana waa inay cusboonaysiiyaan baa la yiri tayada hubka ay ku dagaalamayaan ciidamada Ruushka ciidamada safka hore ku jirana wax kasta ay u baahan yihiin waa in la siiyaa ayuu sheegay madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin intaasi waxay ahayn qodobada kuwii ugu muhiimsanaa imikana aynu faahfaahinno qodobkeena ugu horeeya madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa ugu baaqay madaxda warshada difaaca ee Ruushka inay kor u qaadaan oo hubiyaan ciidamada dalkaasi Ruushka hubka ay ku dagaalamayaan si degdeg ah oo ay dhammaan u helaan agabkii iyo hubkii military ee ay u baahnaayeen si ay dagaalka Jamhuuriyadda Ukraine ay ugu guuleystaan Putin oo hadal ka jeediyay mar uu booqday tuulo ay ku yaalaan goob hubka lagu sameeyo ayaa sidaasi sheegay dhanka kale Vladimir Putin waxa kale oo sheegay hawsha ugu muhiimsan waa inay tahay dhameystirka militariga iyo warshadaha in la cusboonaysiiyo ciidamada safka horena wax kasta oo ay u baahan yihiin oo la siiyo sida agabka dagaalka iyo rasaasta iyo qalabka kale ee u baahan yihiin iyo tirada laga maarmaanka ah iyo tayada sida saxda ah iyo waqtiga ugu gaaban ee ugu muhiimsan ayuu sheegay Putin ayaa sidoo kale sheegay waa mid muhiim ah buu yiri in la dhameystiro oo si weyn loo hagaajiyo sifooyinka farsamada hubka iyo qalabka kale ee dagaalamayaasha Ruushku ay u baahan yihiin ayuu sheegay iyo khibradda laga dhaxlay buu yiri dagaalka Jamhuuriyadda Ukraine intii lagu guda jiray haddaynu halka Ruushka uga baxno madaxda Ukraine ayaa sheegay in dagaalku uu hoos u dhacay boqolkiiba 40 ayay sheegeen madaxda dalkaasi Ukraine qiyaastii ay qiyaaseen boqolkiiba 40 inuu hoos u dhacay sanadkiiba taasoo ugu wacan baa la yiri duulaanka Ruushka iyo wakiilada ka socda warshadaha hubka sameeya dalkaasi Ruushka sida wakaalada AFP ay u sheegeen madax ka tirsan dalkaasi Ruushka dhanka kale Ukraine ayaa waxay sheegtay inay sanadkan ay filayaan in la goosto hadhuudh dhan 65 ilaa 66 milyan oo tan dhamaadka sanadkan madaxda ururka miraha Ukraine
Serichi ninka lagu magacaabo iyo Ifashingo ayaa sidaasi yiri kadib goosashada ayay sheegeen dalagan waa sida ay sheegeen kii hore sanadkii hore ayaa ahaa baa la yiri 106 milyan iyo ahaa sanadkii hore waa sida ay sheegeen imikan hadii aynu eegno sababta ugu weyn ee dagaalka sida tooska ah loogu dagaalamayo muddooyinka badan Jamhuuriyadda Ukraine ayaa ciidamada Ruushka ku riday baa la yiri niyad jab iyo shidaal yaraan iyo caqabad soo wajahday ciidamada dalkaasi Ruushka sida uu sheegay sargaal sare oo reer Ukraine oo lagu magacaabo Ifashingo daawadayaal wixii dambe oo ku soo cusboonaaday muuqaalada dambe ayaad ku daawan doontaan fadlan channelka subscribe saar nabadi